madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ishortaagay in uu shirka maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya uu ka soo qayb galo madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf mudane Farmaajo oo aaminsan madaxweynaha Galmudug in ay jirto khilaaf kala dhaxeeya isaga iyo maamulka uu matalo sida madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka aynan waqtigan munaasab ahayn in uu matalo magaca madaxweynaha Galmudug ayuu aaminsan yahay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya go'aankaasi marka uu ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana ay soo gaadhay maamulka Cadaado warqad dowladdu ay inta ku leedahay durba waxa bilowday in ay telefoon ku wada hadlaan isaga iyo afartii madaxweyne ugu horeyn Axmed Ducaale waxa uu wargeliyay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas warqadan ka timid Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo xukuumaddiisa ku aadan Galmudug inaysan ka mid noqon doonin shirka maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda ay uga arrinsanayaan arrinta al-shabaab isla markaana dowladdu ay salugsan tahay jiritaanka Galmudug State ayuu Cabdiweli Gaas wuxuu kaga jawaabay in arrintan la wargeliyo dhammaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada si ay go'aan toos ah uga qaataan durbo ama daqiiqada kadib waxa dantu ay kaliftay in madaxdii kale la wargeliyo sida madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha Hirshabelle Waare madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe dhammaantoodna waxa lagu wada hadlay khadka telefoonka ugu dambeynna waxa go'aan toos laga wada qaatay in dowladda Soomaaliya la hortago maamul goboleedyaduna ay kala hadlaan arrinta argagixisada al-shabaab iyo la dagaalankeeda maadaama dowladdu ay salugsan tahay jiritaanka Galmudug State oo madaxda kale ay aaminsan yihiin iyaga la'aantood inayna shaqay karin sidoo kalena waxay aaminsan yihiin madaxda maamul goboleedyada haddii Galmudug la wiiqo iyaguna ay ka aamusaan in iyagana ay ku imaan karto doorka sida darteed dagaal foolka fool oo dhinaca siyaasadda ah ayay la barbar istaageen Axmed Ducaale Geele Xaaf saacadihii ugu dambeeyay villa Soomaaliya wararka inuu ka helayno waxa ay sheegayaan in warqad ka timid madaxda maamul goboleedyada ay soo gaadhay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo taasoo ku cad in dowladda uu hogaamiye Farmaajo ay wada aqoonsan karto maamulada oo dhan haddii ay Xaaf diidana ay qasab tahay iyaguna inay go'aan ka qaataan madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo xukuumaddiisa khilaafkan cusub ee ragaadsaday maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si laba lixaadsaday xilli dowladda Soomaaliya ay cagaha la gashay amaan darre la xiriirta dhinaca caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo baaba aad u ballaaran oo soo gaaray shacabka Soomaaliyeed waxayna tani sidoo kale ku soo beegmaysaa xilli shacab fara badan oo Soomaaliyeed ay wada oynayaan qaarkood ubadkoodii waayay qaarkood xubnahoodii waayay qaarna noloshoodu ay marayso meeshii ugu liidatay waxaana la yaab iyo amaka ku noqday shacabka Soomaaliyeed oo la daaladhacaya inta oo dhibaato in siyaasiyiintu ay mid isku qabsadaan khilaafkan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ayaa yimid sidoo kale markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu cilaamiyay dagaal ka dhan ah kooxda argagixisada al-shabaab waxayna tani sidoo kale u muuqanaysaa in maamul goboleedyadu aysan raalli ka ahayn in wadanka Soomaaliya laga sifeeyo argagixisada al-shabaab ama la isku taagayo qorad siyaasadeed aad moodo in ay hoos uga dugan tahay arrimo inta badan shacabka Soomaaliyeed aynan ka warhaynin khilaafkan cusub oo soo wajahay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya wixii ku soo kordha iyo xaaladda salugsanaanta dowladda Soomaaliya ee Galmudug xaggeeda wixii ku soo kordha iyo guud ahaanba wararkii ugu dambeeyay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo siyaasadda Soomaaliya meel walba ay dunida ka joogaan si aad u hesho waxaan ka codsanayaa kuna tilmaamaya waa ay fududahay aadna uma sii foga ee fadlan halka aad codkayga ka maqlayso haddii hoos ay ku qoran tahay Aftahan Video Production waxaad saaraysaa subscribe